xildhibaan yuusuf xuseen afrax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar ku wareejiyay 2 neef oo geel ah iyo raashin si ay dhiirigelin ugu noqoto ciidamada militariga ee sugaya amniga xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa iyana arrin ku dayasho mudan ku tilmaamay deeqdan xildhibaan yuusuf kabaale uu ku wareejiyay militariga Soomaaliya ee ku sugan degmada Jowhar. waxaan leenahay sida xildhibaanku oo wadada oo mara oo wanaagsan inta dambe wadada xildhibaanku jeexa soo marto si yacni maaragtay saraakiisha iyo maaragtay saraakiil xigeenka iyo dibleyda iyo alifleyda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka howlgala maxuu ahay maamul goboleedkan Hirshabeelle si ay iyaguna himigal iyo farxad iyo reereyn ay u dareemaan rag oo xoog gelshay iyo dhiig iyo dhacaan iyo dado iyo qorax inuu rajilsho marka ma ahin ragga sidaas u shaqeeyay in la hilmaamo shaqo korkooda lagu qabsado haday dhamaatana laga dhaqaaqo walax fiican ma walax lagu farxi karna waxa loo baahan yahay in lagu daydo xildhibaan yuusuf caawana waxaan uga gol fadhinaa isagoo ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee joogay xarunta doorashooyinka lagu haayo runaanta amaankana sugay in uu u keenay 2 neef oo geel ah si ay iyagana ay dhiirigelin ugu noqoto run ahaantii waa arrin u baahan qodayasho waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow dalka waa ku sugaya dadkan waa ku sugayaan waan kula balamaynaa maadaama aan ka soo wada jeedno gobolka Shabeellada Dhexe inay raadiyaan xildhibaanada ka soo baxay Hirshabeelle xaq gobolka kaleed oo dhexda u xirtaan meeshan waxa waaye waxa la raadiyaa waa siyaasad marka aruuga aadan waa loo kaaga aalimo intaan walaal jeclaa waday la adayna wehelkuyi xildhibaanka qaranka wuxuu idin hibeeyay geeraan maarugeyho dhaalamadan halaad waxaan ku daraa hilibka adduunkiisa oo dhaalamadan halaad xildhibaan yuusuf xuseen afrax ayaa sheegay inuu ugu talagalay ciidamada militariga ee sugaya amniga caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle xoolahani nool si ay dhiirigelin ugu noqoto. okay maana taliye 2 neef oo geela iyo adduunkoodii waxaan ugu talagalay caawa in ciidamadu farxad casho iyo u noqoto ay ku casheeyaan intaas ayaan ugu talagalay waxaan rajaynayaa insha Allah inaad gudoomi doontiin iyadoo farxad iyo reereen ku jirto iyaguna inay farxadda aan aniga maanta isoo gaartay ila qaybsadaan ayaan go'aansaday marka waxaan idin leeyahay cid walbana intaas la rajaynayaa ciidamadu waxa waaye waa nabadgelyadii waa amnigii waa nolosh meel aan amni lahayn nolol ma tahay marka waxa waaye qorraxda ku dhacayde dhaxanta ku dhacayde roobka ku da'ay marka waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa nabadgelyada nolol ku doortay meeshan dadka dhaliyay diigooda dhacaankooda ku baxay waxaan idin leeyahay soo dhawaada Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar.